roblo waa taageersanaya runtii wax walba qof cid walba wax qabanaysan anigu waan taageeraya insha Allah aniga waxay la saxan fikir ahaanteeda madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin waxaan soran lahaa ra'iisul wasaaraha waa khaldan oo way doorasho waqtiyeysan baa loo dhiibay oo Assalaamu calaykum asalaam asxaabta dhamaantiin YouTube-ka daga daawanaysa waa qarkuin official subscribe dhaha gambaleel kaash ii share gareeya wixii comment-ina waa xaqiina idin leeyahay maanta suuqa loo socda xaala soo duubay soo aragtay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya bulshada gaalkacayda qof walba qofku taageersan yahay qofka roob la taageero qofka farmaajo taageeraba indhihiina idin macalina farmaajo ku saxay inuu ra'iisul wasaaraha ka joojiyo shaqada assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh magaca walaal ma sha Allah wala sharif xuseen balida walaal maanta su'aal ugu diyaar ma tahay ha insha Allah waa diyaar baa insha Allah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya maxaa ka leedahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya waxaan ka leeyahay runtii khilaafkaas waa khilaaf xun waana khilaaf abuuri kara burbur iyo runtii barakicin hor leh marka waxaan jeclaan lahaa in magaranaysa hawsha ayada laga heshiiyo oo madaxweynuhu uu sadee ra'iisul wasaare walba oo la soo doorto uusan ku kicin oo uusan oran shaqada waa ka ruqsay marka anu waxaan bis oran karaa hawshan ayada madaxweynuhu wuxuu ugu dileeyay in marba la yiraahdo ra'iisul wasaare la soo doorto magaranaysa ii sheeg wadanku handala doorashada dib ha u dhacdo dib barnaamijkaas baa laga wata maanu hadda isleeyahay runtii hadan dib u fiiriyo farmaajo dhaleena saamiya farmaajo dhaleena ha roblo taageersan tahay roblo waa taageersanaya runtii wax walba qof cid walba wax qabanaysan anigu waan taageeraya insha Allah assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa rahma adeer magaca Saciid Maxamed Nuur Xigaal su'aal lagu diiday maanta diyaar ma tahay ha diyaar weey madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaaf ka dhaxeeya maxaa leedahay khilaafka kulleeyde waa madaxdu way iskhilaaftaa inta badan oo wada shaqo ka dhaxayso laakiin waxaan soran lahaa ra'iisul wasaaraha waa khaldan oo way doorasho waqtiyeysan baa loo dhiibay oo waqti leh oo dhaqaalaha ku baxay waqtigeeda iyo jaaniskeedu uu waqti leeyahay marka maadaama waqtigii dheereeyay doorashadii xilligeeda ay ku dhici weyday in ra'iisul wasaaraha xilka laga joojiyo shaqada laga joojiyo oo waa ku taageersanay madaxweynaha farmaajo taageersan tahay miyaa farmaajo ku taageersanay inuu xilka ka joojiyo waayo waqtigii uu ku dheereeyay doorashadii xataa dastuurkii iyo wixii loogu talagalay way ka baxday hadda oo waxay noqotay wax iska dhicaysi assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa barakaatuh walaal magaca saacul waliya saaq su'aal lagu diiday maanta diyaar ma tahay walaal madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya maxaa ka leedahay waxaan ka leeyahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya oo markii labaad soo noqdo waxa khaladkaas iyo dambigaas oo dhan uu dhakada u saaraya madaxweynaha farmaajo dhaleynaysaa maxaa ku dhaleynaysaa farmaajo dhaliya xilliga haddeer la joogo waa xilli kala guura waa xilli waqti doorashada dhaafta xilliga u dambeeyay la marayo maadaama xilligan la joogo in xilligan ra'iisul wasaaraha uu hido boos ka saaro sax ma arkaan khadon farmaajo dhaleynaysaa madaxweynuhu keligii talis buu socdaa si qaabku muuqanayo nin keligii talisa uu muuqdaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعة مقعة عبد الله خير بالله السؤال اللي يدي ديار متاعي ديار بالله اوكي لما مدحوينه رئيس وزراء خلاف ku dhaxeey maxaa ka leedahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka leeyahay khilaaf ku dhaxeeya khilaaf horta waqtigeeda ku imaaday maahan waa khilaaf waxa ummadda Soomaaliyeed dhibaato u keenaya burbur u keenaya 30 sano waxaan ka soo gudubnay Maxamed Xamar ka taan qof Soomaali oo ku faraxsan ma jiro in maanta khilaafkaas uu imaado hase yeeshee waxaan ku eedeynayaa ama leeyahay in khilaafkaas uu maaragtay waqti aan loo baahnayn imaaday khaladkana waxaan saarayaa markaste dadka maaragtay dawladda ka soo horjeeda ama dawladnimada waxaan isleenahay dadkii hadda anaga xilligan oo kala dhashay oo waqti magarata ama 18 sano ama 20 sano inta hadda burburka laga soo gudbay deemays arag dawladnimada Soomaaliyeed inta waxaan isleenahay hadda 4 sano u dambeysay xogaa waxaan noo bidhaamay ama aan dareenay in maaragtay dawladnimo iyo waxyaalo badan oo maaragtay anagu aan hore u arag baa hadda iftiin aan noo baxay waa dhabsana maanta in dawladnimadii aan rajaynay in laga burburiyo okay madaxweynuhu ku saxay inuu ka joojiyo shaqada Rooble aniga fikirkayga kulay madaxweynaha Farmaajo wax kasta oo sameeyo inay sax yihiin baa u arkaa waxaan islaahay uu ku saxayaa midaas shaqada ku joojiyo ku saxay miyaa asaas aan kulay fikirkayga aan qaba waayo markasta waxa aaminsanahay in asaga dad intuu madaxweyne imaanayo asagu madaxweyne ka yahay maadaama madaxweyne yahana waxa uu leeyahay wax kasta oo
dhibaato keenaya inuu isku joojiyo marka anu markasta madaxweynahan taageersanahay burbur iyo baalkii iyo magaranaysaa dagaalna ma taageersan waxaan islaahay farmaajo waa rasuul ilaahay noo soo diray wax asagu keen waxaan aan la qaadan baan ugu leeyahay asalaam calaykum baayo وعليكم السلام باي abaay magaca أباي عاش فارع عادم بالله عشان باي su'aal lagu diyaar ma tahay ها abaay soo oragta khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha أنا waxa u arkaa wallahi waa ka xumahay khilaafka loo dhex taagan maadaama doorasho noo socoto doorasho inay khalkhal galiyaan waa nimcaha marka waxa fiican inuu doorashada si sax inta isfahmaan la heshiisiyo kii khilaafka wadana wadanka laga qabto Soomaaliya laga qabto baa rabaa marka kee taageersanta adigu farmaajo Rooble waxa jeclaa farmaajo marka sida madaxweynaha farmaajo taageera maadaama taageersanahay marka farmaajo rabaa dadka inuu ku soo laabto markasta assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaca عبد السميع محمد حاشي cabdisamid walaal soo oragta khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeya والله نيو هذا خلاف حن weeye oo hadda soo kulaaday xil doorashana waa loo jiray kala wareeg kala guura arintaas waxa macnaha dib ah laakiin sida kale dawladdu 100% weeye wayna fiican tahay horumarkeeda ay soconayso iyo waxa weeye waxqabadkeeda iyo waxa weeye caalamka si uu la joogaysanayso 100% weeye okay labada farmaajo iyo Rooble kee taageersanta adiga mise kee kula saxan adiga aniga waxay la saxan fikir ahaanteeda madaxweynaha farmaajo Maxamed Cabdullaahi farmaajo 100% asaga waxa weeye meel waa meesha wax dadka keenay asagana horumarka waday deeyo waxay waday macnaha fikirkiisa la fahmi waayo waa arrin xun oo dib dhac ku dhici karta dawladda 100% ilaa madaxweynaha hadda ra'iisul wasaaraha loo eedeynaya inuu dhulal dawladeed Soomaaliyeed uu cunay inuu waxa weeye guddiga doorashooyinka uu kala diray systemkaas waxa ra'iisul wasaaraha loo eedeynaya laakiin 100% anu madaxweynaha oo taageersanahay assalaamu calaykum baayo وعليكم السلام باي abaay magaca magaca xamdi walna xamdi abaayo soo aragta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaafka u dhaxeeya والله خلافك waxaan u arkaa waxaan u qalmin weey maanta Soomaaliya ay soo qalmin khilaafka maanta ka dhaxeeya madaxda sare ee xilka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay madaxdu heshiiso okay adu keeba taageersanta qof walba taageer u leeyahay Rooble iyo farmaajo waxaan taageersanahay madaxweyne farmaajo taageersanta madaxweyne farmaajo taageersanahay farmaajoysanta miya farmaajoysana 100% hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed ani kaliya ma ahan wala lagu wada qabaa fikirka miya shacabka dhan assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaca magacay waa Xudayf Cabdiraxmaan Ibraahim Xudayf walaal khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxaa ka leedahay والله ما شاء الله doorto soo dhaweynaa koodha walaal arinta waxaan jeclahay shacabka qof wax u qabta labada dhinac ra'iisul wasaaraha asina waa haliyada oo qaran Soomaaliya madaxweynaha waa sidoo kale labadooda wax walba ishaan inay ku dhamaadaan baan rajaynayaa khilaafka ma jeclaan lahayd khilaafka ma soo dhaweynaysaa ma khilaaf maro nabad baan rabaa wax walba ina abniyo sugnaado walaal imanka nabad wax walba inay ku dhamaadaan baan jeclahay okay farmaajo Rooble kee taageersanta adiga waxaan soo dhaweynaa hadda farmaajo soo dhaweynaysaa waa farmaajoysanta miya hada waa haliyada Soomaaliyeed waxaan jeclaa si asro ama wuxuu asi u arkaya in loo sameeyo wax buu arkaa kule qofkee farmaajo wuxuu rabaa loo sameeyaa leedahay hada walaal dalil badan buu arkaa ninka waa isku dhigiiso ma kuraasto kuraasta kaliya ma qaranka Soomaaliyeed farmaajo xilida wadanka loo dhiibay ilaa hada walaal musuqmaasuq iyo waxaan ku aragnay ciidaman qaran Soomaaliyeed ciidan iyo wadankii buu ku mashquulo inta kale walaal oo dhiman in loo daawo la aamus wadanka mar walba kan ka dig kan iyo kaaskan waa dhibkeed bay leedahay ma fahamsaa waxaan jeclaa ninkan ultimate in loo aakhirsadaa loo daayaa leedahay loo daayo